inkastoo waayihii ugu dambeeyay Yusuf Lambasa goolhayaha xulka gobolka Sool uu wiigagii la soo dhaafay baraha bulshada lagu faafinay taasoo dadku isweydiinayaan ninkan ma Soomaali ama Kenyaatiba laakiin Yusuf Lambasa oo ah goolhayaha gobolka Sool kadib markii dhaawac ka soo gaaray qaybta madaxa ay ku tunteen gobolka Daadmareed kadib xulka Sool iyo Daadmareed kadib markii ay ku war ciyaareen garoonka Hargeysa Stadium ee ka socda koobka Somaliland haddaba xaalka Yusuf Lambasa xaguu maraya dhaawac ka soo gaaray arrimahaas ayaan ku farqayn doonaa saaxiibayaal haddaba halkan ku cusubtay channelkan xog bixinta wararka subscribe ku qabsay ku soo gaaraan muuqaalada kan iyo kuwa ka dambeeya muuqaalkana like saar haddaba xulka gobolka Sool gaar ahaan gooliyahooda gobolka Sool ee Yusuf Lambasa ayaa saacadihii ugu dambeeyay isbedel degdeg ah ee Hargeysa International Hospital ugu jiray xaalad caafimaad darro laakiin Yusuf Lambasa oo ah goolhayaha gobolka Sool ee xulka gobolka Sool ayaa xaaladiisa laga deerinaya kadib markii dhaawac ka soo gaaray xagga madaxa laakiin Yusuf Lambasa ayaa حتى الآن كوما كتير كنت مركي ودور ساعات كوما كتير كاسو عسبتال كهرجيس ولي حالة دي عافماد والطبيبيو لكن يسوي رك الشيء Yusuf Lambasa ayaa كدي مركي وموقال كصوت وين mid kamida wariyaasha ka howlgala gudaha Somaliland ayaa ka soo duubay muuqaal degdeg ah kadib markii uu bartiisa Facebook uu ku faafiyay kaasoo ka sheekeynay gudoomiyaha ama xoghayaha kooxda gobolka Sool kaasoo ka sheekeynay in xaaladda Yusuf Lambasa ay xataa aan ku jirto xaalad culus kaasoo wali dhaqaatiirta gudaha Somaliland ka howlgala gaar ahaan dhaqaatiirta gudaha Somaliland ka howlgala ee Hargeysa kuwaasoo dabiibiya xaaladiisa caafimaad darro laakiin Yusuf Lambasa ayaa 24 saac ay soo socda laga filay inuu حتى الآن عافمادkiisu soo tamaam uu noqdo oo sidii hore ku soo noqdo haddaba Yusuf Lambasa ayaa nagu ducaynaa in Ilaahay caafimaad taam ugu soo siiyo caafimaadkiisina u soo celiyo Yusuf Lambasa oo ahaa raggii ku tuntay gudaha ama raggii ku tuntay gobolka Togdheer ee wadada raaciya ee baska soo saara ayaa kadib markii ay Soomaalidu ku mahmaahdo ciyaari waa garan dambe ee ku tuntay gobolka Daadmareed kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray qaybta madaxa haddaba halkan waa kanaalka xubinta wararka saaxiibaha haddii aan hore ku soo gaarin muuqaalada aan halkan ku baahino waxaan ka codsanaa saaxiibin muuqaalkayga aad like saarto si uu sii gaaro dad badan oo asxaabteena waanaad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga saaxiib daawadayaal Ilaahay caafiye goolhayihii xulka gobolka Sool Yusuf Lambasa ayaa la dhigay isbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa kadib markii dhaawac uu maalinimadii shalay soo gaaray ciyaartii dhexmartay gobolka Sool iyo Daadmareed xaaladiisa caafimaad ayaa la sheegay inuu marmarka qaar kooma gelayo isduwaha ciyaaraha gobolka Sool ayaa nooga warbixin doona xaaladda caafimaad ee Yusuf Lambasa sidoo soo dhaw xasana waa dhawahay wada maasantahay Yusuf shalay dhaawac ka soo gaaray ciyaartii dhexmarisay xulka gobolka Sool iyo xulka gobolka Daadmareed ciyaartaasi markay soo dhamaatay Yusuf waxaan geynay dhakhtarka isagoo 13 daqiiqo u jiifay dhaawacii ka soo gaaray ciyaarta socodka hore hase ahaatee markii dhakhtarka geynay wuxuu siiyay daawooyin iyo kala jibin ayuu siiyay xaafadaan u geynay Yusuf runtii xanuunkii madaxa ka gaaray oo markii dhakhtarka aanu keenay caawa Yusuf marna qaba ay galay marna garasho isla maqnaa mararka qaarkood Yusuf ma aysan joogin laakiin alxamdulillah marka dambaysa uu ka soo yaraanaya Ilaahay waa mahad iska leh laakiin waxyaalaha yaab kale aan garanayay ciyaarta shalay markay soo dhamaatay hadda ay kula naga warramay Yusuf in uusan ogeyn ba wixii ka dhacay garoonka iyo wixii gool dhalinay iyo wixii shabagiisa gool taabtay ciyaartan ay halka hore xaaladiisa ugu dambeysay taasina markaan runtii sheegnana Yusuf iyo wixii shalay garoonka dhacay kuwa islaama aysan ahayn waxaan cadeynaysaa in uu Yusuf midkiisa iyo isagoo caadi u joogay halka hore ciyaarta laakiin uusan halkii dambe joogin bas sidoo uu magaranayay
marka uu isla maqan yahay kale uu ku hadlayo uu ku shoogayo intuu boodo marba dhahayo ciyaartii uu ka sheekanayo marba xaaladii waxay marka runtii Yuusuf nin qaran buu ahaa dadka dhan waxay ahaa ma ahay nin kooxan in gobola laakiin ciyaartoyda ciyaarayay iyo kuwa hagaagsi waxay u haysteen nin gaar ah iyo nin gobola laakiin waxaan u sheegnaa gudaha shacabka Soomaaliland iyo qaranka oo dhanba inuu Yuusuf yahay dadka oo dhan anfacay iyo qaranka oo dhan iyo xulka oo dhanba ee reer Soomaaliland oo dhan laakiin sanadsan haynin ma garanaysaa lagu tiriyo gobol gaar ah iyo cid gaar ah marka runtii Ilaahay caafimaad baa u rajeenaya haddii alla idmo caafimaad taam ayaan rajeenayaa Ilaahay baa ma hadda iskale in uu marba xaaladdiisu ay ka soo horeysana waan rajeyn doonaa insha Allah aadna u mahadsan tahay Xasan dhakhtarka daweynaya Yuusuf ayaa isna halkan jooga dhakhtarku soo dhow marka hore bal xaaladda caafimaad goolhaya nooga war Xasan oo dhawahay xaaladda goolhaya waxna loo keenay adoo ilaa 2 saacadood ka hor isagoo ku jira kooma runtii xataa dareen mu lahayn oo marka waxaan anagu u naqaano qofka dareenkiisa lagu eego la qanjiyo kale wax alla uu dareemayo ma jirto afartiisa waa xoog madaxa alxamdulillah waan ka soo horay wax nabaro weyn oo ka muuqda ma jiraan oo CT scan ku soo saaray marka maskaxda ka soo horay imka garashada mu lahayn ku daro